mahadsanid maxamed. dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa iska kaashanaya socdaalka dhanka garoomada si looga hortago falalka la xiriira amni darrada. warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdirasaaq Maxamed Axmed. si loo xoojiyo wada shaqaynta howlaha shaqo ee ka dhaxeeya hay-adaha socdaalka ee dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee Galmudug iyo Puntland isla markaana loo ilaaliyo fursadaha ay heli karaan shakhsiyaadka lagu tuhmayo inay galeen faladambiyeedyo ku qasbi kara inay dalka ka baxsadaan ayaa waxa maanta kulan looga hadlay arrimahaas iyo kuwa kale ku yeeshay magaalada Gaalkacyo mas'uuliyiinta hay-adaha socdaalka labada dowlad goboleed kuwaasi oo wada dadaal ay ku doonayaan in ay ka wada shaqeeyaan dhammaan howlaha shaqo ee hoos yimaada. kulanka kadib ayaa waxa warbaahinta uga warbixiyay ujeedka kulanka iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen isla markaana isku afgarteen agaasimaha xafiiska Galmudug ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya Sugaal Yuusuf Kaahiye iyo agaasimaha xafiiska Puntland ee hay'adda socdaalka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Faarax Qambi. waxyaabaha aan isku ku waxa ka ah in shaqada aad iyo aad loo dardargeliyo sida qofka dambiilaha ee ka yimid Puntland وصن وقبحين قلمدو مانيا كيبد بدلان تجينا وصن وقبحين بدلان سياس اللي جت قفك كسر السنة يا باسبور سقل تن لودي لي إن أمام مثلا بشرودي وبحواي أما وأجنبي وأك صومالي وياهي لودي ذا بدلان إن وصن كسر السنة إن قلمدو وصن كسر السنة نينك كإيمانا يا بدلان بعد قلمدو كتجينا وصن بدلان وصن السنة waxaan ku heshiinay labada xafiis in aan ka shaqeyno wada shaqeyn guud si qofka faltibiyeedka kaga kala Puntland oo aduu u soo baxo xafiiska Galmudug u yimaado si aan ugu gudbino aan u qaban waxa jira dad iyagu wax baasaboor ama wax dukumeenti ku bixin gaar ahaan aeroboorada garoomada diyaaradaha Gaalkacyo iyo deegaanada kale Puntland iyo Galmudug taas sidii ku fududay in qofkaasi uu ka bixin ama qaab ay ka wajahi kartaa barnaamijka hay'adda laftigeeda waxay leedahay nidaam ah in la sameeyo kaarar international oo ah kaar oo federaal ah oo qof walba oo aan haysan ID aan haysan inuu diyaar raaci karo oo ID-gaas uu yahay ID controller oo database system uu leeyahay. kulankan ayaa kii horeeyay oo ay si rasmi ah u yeeshaan mas'uuliyiinta laamaha socdaalka ee labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Galmudug waxaana talaabadan ay qayb ka tahay qorshaha ilaalinta tahriibka iyo socdaalada kale ee aan sharciga waafaqsanayn. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.